gobolka caanka ku ah dhaqanka iyo dhaantada Cali Bashiir Cabdi oo loo garanayo Cali Dhaanta ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Wilwal Airport ee magaalada Jigjiga. Soo dhaweynta fanaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda Soomaalida, kooxaha fanka ee ka aasaasan deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka fanaanka caanka ku ah dhaantada Cali Bashiir. Waxaa ugu horreyntii soo dhaweynta fanaanka hadalka iska daba qaatay wasiirka xogeenka dhaqanka iyo dalxiiska mudane Salaad Dabbar Yuusuf iyo wasiirka xogeenka qurba joogta mudane Cali. aniga ku hadlaya magaca xafiiska dhaqanka dalxiiska ee dowladda Soomaalida in aan maanta halkan ku soo dhaweyno Cali Bashiir Cabdi Cali Dhaanto oo ah nin dhaqan ah deegaanka Soomaalidana in badan ka shaqeeyay qurba joogna noqday baryahan dambe oo dalka ka cararay cadaadiskii iyo dhibkii iyo mushkiladii jirtay dalka uga cararay. waxaan ku faraxsanahay dowladdeedan ahaan inaan ku soo dhaweyno maanta meeshan farxad aan la koobi karin aan dareemayno iyadoo dadkii dalkan cadaadiska iyo dhibka uga cararay ee nafafyaalkooda kala baxsaday nafafyaal kalena lagu waayey qayb ka mid ah aan maanta halkan ku soo dhaweyno iyadoo Cali uu ahaa ninkii dhaqanka halkan dhibka u dhigay oo aad wada garanaysaan. waxaan leenahay Cali soo dhaweey dhulkaaga oo nabada oo aan cidna maanta ku jujuunaynin cidna ku cadaadinaynin cidna ku dhibaynin meeshaad doonto aad mari waxaad doonto aad ku hadli sidan u hadal aan lagu lahayn sidan uma hadli karti aan lagu lahayn isla markaana aan ammaan lagu lahayn oon ammaan lagaa doonayn oo haddii aadan ammaanin ama aad ii dhaantaynin ama aadan ii gablin oo aad ii qoslin waan ku dili aan ahayn free xorriyad iyo madax bannaani ku soo noqo dalkii wuu isbedelay wax badan oo isbedelaad ugu imaan doonta halkan dadkii oo nin walba siduu doono ugu imaan doontaa dadkii oo xor ahbaad ugu imaan doontaa dalkii oo horumar iyo wanaag weyn laga sameeyey baad ugu imaan doontaa magaalada Jigjiga iyo Laami iyo wadaleeda ugu imaan doontaa oo meelaha ka timid oo kale Yurub iyo Scandinavian oo kale ugu imaan doontaa. waxay doonaan ha sheegaan bini aadamku waa madame wax badan baa la qabtay oo ka dambeeyay wax badan oo dhimanna way jiraan. dariiq horumareed baan ku soconaa, dariiq nabadgelyo ku soconaa, dariiq wada tashi baan ku soconaa, dariiq midnaan ku soconaa, dariiq dawlad xor ah oo dadkeeda iyo ummadooda u naxaysa oo la tashanaysa ku soconaa. waxaan leenahay soo dhaweey axsan baan soo dhaweynaa maanta waxaan soo dhaweynaynaa Cali Dhaanto oo faraxsan isaga reerkiisiga kuwaasoo muddo ka maqnaa waddankaas duruufo siyaasadeed iyo caqabado amni oo la xiriira naftooda oga maqnaa. runtii isbeddelka kadib Cali Dhaanto ka hor dad badan oo sida Salaad sheegay waddankan arrimo nabadgelyo iyo arrimo siyaasadeed oo la cararay baa ku soo qorqulay oo maalin walba soo dhaweynaa. Cali iyo arrintiisa iyo xaaskiisa waxaan leenahay soo dhawaada waddanku waa nabad ilaahay waa lagu mahadiyaa. dhib badan oo waqti dheerna soo maray kadib dalku maanta waa nabad horumar bilow adaa jira maamul suban oo bilow adaa jira wax walba waa noo bilow. ammaan iyo daliilba waan leenahay annagu sidaan aaminsannahay ammaantaannada badan oo wixii wanaagsan qabanada badan. tusaale waxaa ku noqon doona haddii la yiraahdo magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda Soomaaliya ahayd oo hal wado oo dowladda federaalka ay fulisay lahayd oo laami ah maantadan ilaa 4 laami oo dhinacyada oo kala baxay 6 socdo oo gacanta lagu hayo oo waqti dhamaanayo. Jigjiga weligeedba waxay la tani xayl Salaasi hal dugsare lahayd maanta waxay leedahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaa 6 dugsare cusub. ugu dambeyntii fanaanka ayaa uga mahad celiyay soo dhaweynta qiimaha sare leh ee uu sameeyay mas'uuliyiinta ka socotay dowladda iyo fanaaniinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka intii soo dhaweysay maanta cadceedda timid iyo intii shalay ku rafaaday cadceedda labaduba waan salaamayaa waana ka raali gelinayaa wixii dhacay ugu horreyn. marka labaad waxaan leeyahay wasiirka waad mahadsan tahay wasiir adiga iyo
inta wasiirada kale meesha fadhiyada qof walba waxaan ku salaamayaa maamuuskiisa iyo meesha uu fadhiyo waan la socdaa warbixintan hadda aad ii sheegtay dalka waanu ka maqnaa mooyaane dhegteeda kama maqnayn wax badan oo la qabtay waan la socdaa iyo sida uu xaalku yahay in isbedel dhacay oo isbedelkiina siyaabo badan looga faa'iidaystay xorriyatul qowlkuba ha ugu badnaado oo ugu muhiimsanaaye waan la socdaa waxaana leeyahay ilaahayii keenay baa ku mahadsan intii ka sii hoos qaaday iyadana wax meel gaarsiisayna way mahadsan yihiin intaa markaan ka soo gudbo shalayta caqabad yarada meesha ka dhacday oon raba inaan uga faa'iidaysto meeshan waxaan anigu sii ogaa laakiin aan dhayalsaday oon islahaa maadaama aad muddo ka maqnayd eega waxaan u malayn dhici mayso warqad yar oo hay-adda kahor migrationku ii qoreen baa jirtay oo 2013 aan mar la soo celiyey aan ku maray laakiin tii baa luntay 8 sano maanan islahayn markaad soo noqotay hadda warqadii yareed loo baahan doonaa laakiin magacu weli meesha uu iska yaallay marka nin walbana isbedelku markuu dhacay intii hortaalay dhib ahayd unbuu nin walba is yidhi iska hor qaaday tii aniga gaarkii ahayd ciidamay raadinayda way sugaysay marka anigu bay tahay inaan hadda iska hor qaado haddii la yidhaahdo anigu meeshii warqadda ka timid ku celin doona marka shalay dhibkaasu ahaa cid gaar oo aan ku eeganay ma jirto waana ka beri baan leeyahay xukuumadda hadda jirta shalayna maynan ayagu warqadda ay dhigin oo dhibkaa shalay dhacay ayagu ku mas-uul kama ahayn waana uga mahad celinaya riboorkaana ku jira inay wasiirada saaxiibada ahaa iyo madaxweynaha ugu horeeyay inay soo waceen oo riboorka dhexdiisii wax alaali waxay qaban kareen inay shalay ay isu geeyeen culeyskooda komishinkiina loo soo diray magaalada Addis Ababa waxaa la yimid marka waxaan leeyahay xukuumadduna intaa way ku mahadsan yihiin waxaan kala rabaa oon doonaya inaan la hadlo dadka social media dadku way kala duwan yihiin siyaabo badan bay dad uga falceliyeen aniga hadalkaygu ama socodkaygu ma daara shakhsi keligii min waddankiis ka maqan baan ahaa waddankaygii baan imid oon u soo noqday oon rabaa inaan bal muddaan ka maqnaa inaan soo aado xaq baan u lahay inaan baxo soona noqdo wixii caqabada haysatay dareero badana haddii inaan xalliyo ciddii la xallin karto in layla xalliyin baa muhiima tii hore tagtay dhibkeedii iyo waxeedii aniga hay dhibaatayso laakiin muhiimadaydu ma aha inaan dad taageersan oo taas inaan ayaga durhayo haddii taageersan iyaga u taallaa laakiin aniga wixii dhibay sheegay shalay dawaadeedeen qofku markuu dhib gaaro kor looma hadli karin oo maydan ayaga naftooda way ogaayeen haddii aan shalay waan qarsanay laakiin waan ku maraynay tallaabadaasi baan u maraynay laakiin eega heer waxaa la gaaray la hadlay la yidhaahdo dhibaatada meesha weli ii taalla marka xorriyatul qowlka imaaday in afka la isqabta maaha marka aad baad u mahadsantihiin si kastaba ha noqotay fanaankan oo qaada dhaantooyin kala duwan ayaa la filayaa inuu muddooyinkan soo socdo uu joogi doono dowladdeegaanka Soomaalida soona bandhigi doono dhaantooyinkiisii uu caanka ku ahaa Muxuudiin Aadan Maxamed Muxuudiin Xarago RTN TV bartamaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhamays waa maxay dhamays dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig 444 afar gees